waa idin wada salaamay dhamaantiin khiyaaray ku soo dhawaada Muqdisho Cooking. maanta waxaan inoo sidaa digaagaas waxa weeyaan challenge oo maxalida hooyo macaan ay soo gelisay hooyo macaan ay ku challenge gareysatay hablaha Soomaalida ee YouTuber-ka ah. marka maanta anakaasan ka qayb qaadanaya. halkan waxa ii taala waxa weeyaan xabad digaag ah. xabada digaaga ah waxaan iminka ku darayaa waxa weeyaan waa khalkaas iyo waxaan ku darayaa liin dhanaan iyo milix. kabacdi waan iska dhigayaa cabaar inta waxyaabaha kale isku dardarsanaya wii oolaya. marka aan xawaashiyada iyo waxaas oo dhan aan isku soo wada dardarsado ayaan maxal yiraahdaa insha Allah hadii la hayraada aan inta kale marmarinaya. qof walba xawaashka uu haysto oo marka u yaala ayuu ku darsanayaa ama uu jecel yahay dhadhankiisa. waan idin tusaya insha Allah hadii la hayraada xawaashiyada iyo yaala oo dhan. halkan saxankan isaga waxa igu jira waa baradho, liin dhanaan, basal, basbaas akhtar iyo kamsaro. intaas oo aan doonayo hadhowtana inaan gudaha ka geliyo inta iyo waxaan rabaa bariis inaan caloosh ka gelsho insha Allah hadii la hayraado. marka xawaashiyadan idin tustusaya insha Allah hadii la hayraado. qofkii doonaya maxaa la yiraahdaa halkaas uu ka qoran karaa ama ka qaadanaya waxa uu baahan yahay. waxaan imika idin tusaya waxa weeyaan waa rumaan kaas ugu muhiimsan. rumaankaas hilibka chickenka waxyaabaha aan dubayo oo dhan ayaan mariyaa. wuxuu noo sameeyaa midab yar oo qurux badan sida sooyo oo kale ay wuxuu u sameynayaa midab yar oo dahabi iyo aad u qurux badan oo aad moodaysid in la dubay. marka insha Allah hadii la hayraadana isla aragno xawaashidii oo dhan waa kuwaas. maxaa la yiraahdaa waan isla arkaynaa insha Allah hadii la hayraado. fiidiyogan inuu dheeraanaya ayaan maleynayaa. inkastoo aan necbaan fiidiyoga dheer inta badan waan ka jarjaray. maxaa la yiraahdaa xoogaa baan isugu soo koobay laakiin waa fiidiyogii igu dheeraa fiidiyogan aan fiidiyo aan sameeyo insha Allah daawasho wacan. halkan imika waxaan isku soo dardaray wixii xawaashaha oo dhan madiibadan yar ayaan ku riday. waxaan kaloo ku daray oo dheeraada waxa weeyaan waa butter ayaan ku daray. butterkaas waxaan rabaa yacni si uu gudaha uga galo ilaa saliid iyo wax kala toona kuma darayo sidiisaan ku gelinaya ovenka. marka hadda waxaan soo qaatay waxa weeyaan waa chickenka si wanaagsan ayaan ugu masaajaya. meel kasta ayaan ka marinaya ilaa caloosha gudaheeda dhinacyada meel kasta. chickenka inta badan lugaha iyo waxay noqdaan haddaan xoog loogu masaajin oo la dhex gelin milixda ma yeeshaanay ama kama dhadhanta dhanaanku. inkastoo anigu iminka khalna iyo liin dhanaan iyo milix aan ku dhigay cabaar oo ay lafta ka gashay. khalku wuxuu sameeyaa bakteeriyadu ka dilaa. wuxuu kaloo u sameeyaa wuu ku jilcinayaa chickenka ama hilibka wax kastoo cabaar ku dhigtid aad ayuu markaba ilbiriqs u kala daadanayaa. khalkii iyo liin dhanaantii iyo milixdii baan cabaar ku dhigay. iminkana wixii kale oo dhan aan isku soo daray ayaan maxaa la yiraahdaa aan marinayaa. marka xawaashiyada aan isku soo daray milixda ayaan ka ilaaway mar dambe dib kaga daray inkasta oo chickenka aan ku dhigay milix. hadda si wanaagsan ayaan ugu masaajaya meel kasta ayaan waxaan ka marinayaa bahalkii xawaashkii. hadda halkan waxaan kusoo ritay waxa weeyaan alaabtii aan rabina gudaha kaga guro. waxaan sameynayaa marka xawaashkii intii soo hadhay iyo waxaan isku walaaqayaa basal baar weeya. waxaan inka ku riday basal baar, basal caadiya, baradho, liin dhanaan iyo kamsaro. inta iyagoo sidooda waxaan ku darayaa maxaa la yiraahdaa xawaashkaas ayaan ku walaaqayaa. kabacdi gudaha ka gelin waan isla arkaynaa insha Allah hadii la hayraado. imika chickenkii alaabtii waan isku soo walaaqay waan isku soo daray. chickenkii ayaan soo qabtay waxaan ku ridayaa qudradii
chickenka xoog markaad u cadaadisid od wixii xoogaa wallahi xoogaa buu qaaday xoogaa biliisa iyo qudradii waan ku riday xoog ayaan isugu cadaadiyey aan wada geliyey ugu guray caloosha iminkana waxaan soo qabanayaa waa bariiska waxaan ku kariyey maxaa la yidhahdaaye baxrasaaf caleenta baxrasaafka iyo qorfe iyo maxaa la yidhaahdaa wax yar oo subag ah iyo milix intaasoo keliya taa ayaan ku sameeyey kabacdi iminka waxaan dhex gelinayaa calooshan kaga guraya insha allah haddii la yihahdo digaagada intii ay ka qaado waan ku cadaadinaya bal intay ka qaado insha allah aan arki doona haddii la yihahdo bariiski waan ku guray iminkana waxaan xagga daba kaga sii gurayaa baradho iyo maxaa layaha basal iyo basbaas akhtarkii basbaas akhtarku markaa ma kala go-na isagoo sidiisa ah sababtoo ah waxaan doonayaa inuu ku baxo udgoonkiisu inuu gudaha ka galo liin dhanaana waan ku dhex riday waxaan rabaa gudaha xagga hoose inay aada dhadhan uga yeelato because sababtoo xagga sare keliyata haddii ay ka macaanaato xaggii hoose gudihii waxay u baahan tahay digaagu in uu maxaa la yidhahdaa uu ka macaanaado insha allah waxaan sameynayaa xaggan dambe imika waan ka tolayaa waxaan soo qabanayaa xadhiga bariiska laga furo afkiisa kaas ayaan waxaan kaga tolay gudaha waan isku xidhay labada lugood ayaan isugu xidhay markaa si aanay uga bixin ama aanay u dilaacin marka gudaha la geliyo xagga dhuuntana ilaa wixii waan cadaadiyo xagga dhuuntana haddii kale way kasoo daadanayaan maxaan idhaahdaa cuntadii xagga dhuuntana waan ka xidhaya iyadana way dibirtay baashay aada bay u yarayd marka hore laakiin iminka waxaad moodaa aada ayay usoo dibirtay waan xidhay iminkana dushan waxaan kasii marinaya waxa weeyaan rumaanku xoogaa dhanaan uu leeyahay hadda waxaan ku duubayaa warqadda ofinka lagu geliyo cuntada ayaan si wanaagsan ugu duubay kabacdi almuniumka haddana soo qabanaya dusha sara waxaan kaga siinayaa meelnaba aanay ka banaanaanin si aan cusbada aanay u dhexgelin saxankiiba waxaan kusoo gursay cusbadii baan hoos si wanaagsan usoo dhigay dusha saraan markaa haddana aan iminka kaga sameynaya insha allah haddii ilaha iraado mustafa yiri anaan ku caawinaya mustafa caawinaya isagaa ila sameynaya intii dambe isagaa yiri anaa dhisaya guriga waan kasoo saaray 2 saacadood iyo 20 daqiiqaan u daayay waan kasoo saaray ofinkii iminkana maxaa la yidhaahdaa waxaan ku shidayaa dabkii gurigii maanta la dhisayay wuxuu u baahan yahay in la jajabiyo iminka jajabiskiisaaba isagana hawl kala ah madidii ayaa ii jabin la waxaan soo qaatay bahalka lagu sameeyo steega kiibaan la dhacayaa ku jajabinayaa aan dubo uga dhigay waa maanta dhan guri aad dhisaysa khatar ka dhigtay haddana jajabi gacantaada adigu jajabi waxaad maanta dhan dhisaysay iminkana waan furfurayaa haddii ilaha iraado almuniumkii ayaan dusha ka furay haddana warqadii ayaan furay
inkastoo 2 warqadood aan kusii dhex duubay tii labaad baan haddana furayaa maasha allah chickenkeena saas kusoo baxay chicken aad u qurux badan ayuu noqday talabaad wax kaaga daran hadda waxaan sir malqacada ku qaad inuu googo aan ka baqay yani aad ayuu bislaaday maxaa la yiraahdaa inta bariiskaasi waxaan soo diyaariyay saladkaas gudahana waxa ugu jiray alaabtiisi insha Allah hadii la hayraado iminka ayaan anoo kala furi doonaa hadii la hayraado inkastoo meesha aad moodsi xoogaa qudcu inay tahay laakiin insha Allah waa la arki doonaa iminkan kala furaya hadii la hayraado hadda waxaan ka furayaa waa xarigii aan ku sameeyay ma baahna midi laakiin xoogaa gacanta nacaya aan gelinayo waana kulul yahay laakiin midi uma baahnaba isaga kala daadanaya bariiskii caddaa isagoo cadaanka ahaa aan ku riday uu isbedelay wuxuu noqday maxaa la yiraahdaa dahabi oo waxyaabihii lagu dardaray ayuu ekaaday halkan waxa yaala waxa weeyaan waa baradhadii soke xagga shishana waxa yaala waxa weeyaan waa bariiskii wakaa bariiskii maasha Allah alaab saasay kala daadanaysaa baradhadii bariiskii xataa wuxuu noqday furfur yar maasha Allah markii hore xoog ma soo karin sida surbiyaanka loo sameeyo kala aan kariyay hal mar baan fax soo siiyay haddana wuxuu noqday maasha Allah bariis aad u macaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد الله هاي سود وهذا حالي هذا واندمي ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.